qadari oo xishmee bulshada qaybaheeda kala duwan xataa haddaynan ku qadarinin, waayo maalin bay garawsan doonaan inay dahab waayeen goortii ay maarta ilaalinayeen. xusuusnow in maanta iyo raaligelinta cidda kaa mudani tahay rabbigii ku abuuray, ku irsaaqay, ku ilaaliyey, kugu deeqay waxa aad haysato bilaa shuruud. goortii aad dunida ka tagayso ma sii qaadan kartid lacagtaada, balse waad iska sii horaysiin kartaa bixi oo badi sadaqada. inaad qalbi fiican yeelato waxa ay ka fiican tahay inaad weji qurxoon yeelato, waayo quluubta dadka waxaa eega Allah ina abuuray. goortii aad dhimato kulama gudboono talo, balse geerida ka hor ayay kula gudboon tahay. labada jiho kii aad qaadayso. jannada laguma galo camal, laguma galo mansab, laguma galo madaxnimo, balse waxaa lagu galaa naxariis Rabbi goortii aad samayso ficilo fiican. markastoo aad ducaysanayso ku dar Rabbow naxariistaada igu jannee, sababtana ha hilmaamin. dadka aan lacagta haysan badankooda waxay aaminsan yihiin hadday haysan lahaayeen lacag in noloshoodu hagaagi lahayd, balse kuwa haysta ama bilyan dheerta ahi uma arkaan inay leedahay qiimo, waayo hadday qiimo leedahay caafimaad ayay ku gadan lahaayeen. ku qanacsano wixii Rabbi kuugu irsaaqay. nolosha ma hagaagto inta maalku bato, balse waxay hagaagtaa markii iimaankaagu bato. ujeedo ku dadaal inaad iimaankaaga kor u qaaddo, waayo iimaanku janno ayuu kugu hogaamiyaa. ku mahdi Rabbigaaga xaalad kasta, ku mahdi Rabbigaaga goob kasta, ku mahdi Rabbigaaga goortii aad hurdo iska rogto. marnaba ha hilmaamin Rabbigaaga, waayo waxa uu ku abuuray adigoo aan jirin. wuxuu kugu abuuray 3 madow dhexdooda. naftiina iyo taydaba waxaan idin leeyahay Rabbigiina ha hilmaamina, ogow wax kasta isagaa ku siiya bilaa shuruud.